nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee markii uu yaraa wuxuu carabta dhexdoodii uu ka ahaa qof amiina oo ay ku kalsoon yihiin. xitaa isaga oo yar nebiga ayaa waxa uu ka qayb qaatay kulamo kala duwan oo odayaasha iyo waxgaradka bulshada ay ku wada kulmayeen. waxaa la sheegaa maalin magaalada Makka waxaa soo galay nin miskiina oo badeeco wada, kadibna ninka miskiinka waxaa badeecada ka qaatay nin kale oo dhib badan. halkii looga baahnaa in ninkani miskiinka lacagtiisii in la siiyo, ninkani magaalada deganaa waa uu diiday in ninka miskiinka uu lacag siiyo. isjiijiid dheer ah kadib ninkii miskiinka ah ee magaalada ku cusbaa waa la dhacay, kadibna inta uu qiirooday ninkii miskiinka ahaa ayaa waxa uu istaagay buur dheer, kadibna cod dheera sida tolla ayuu ku qeyliyey. ninkani miskiinka ah dadka uu ka dhashtay ee qabiilkiisa marka ay maqleen in la dulmiyey arrintu laba qof waa ay ka badatay heer waxa ay gaartay sheekadu laba qabiil in dagaal ay u diyaargaroobaan. dagaal xoogan in qabiilada dhexdood uu marana waa wax carabta dhexdoodii caan ka ahaa. dadkii waxgaradka ahaa markay arkeen in qabiilada dagaal ay u diyaargaroobayaan waxay u istaageen inay hor istaagaan. beddelkeedii wadahadal in lagu dhammeeyo ayay bilaabeen. kadibna dadkii waxgaradka ahaa waxa ay iclaamiyeen shir weyn oo ay isugu imaanayeen kaaba qabiilada ugu waaweyn ee deegaankaasi degnaa. kadibna nin odaya oo dadka oo dhan ay qadariyaan gurigiisii ayay ku ballameen. odayaashii qabiilada oo dhan ayaana kulanka isugu imaaday. nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee isaga oo yar oo weli xitaa 20 sano aanan gaarin ayuu shirkaasi ka qayb qaatay. qodobyada ugu muhiimsanaa ee shirkaasi ka soo baxayna waxa uu ahaa in hadda kadib magaalada Makka inaanan qofna lagu dulmin karin. haddii lagu dulmiyana dadka ehelka ah ee magaalada degan oo dhan qofka dulmiilaha ah waa in tilaabo ay ka qaadaan iyada oo aanan loo fiirinin qofka cidda uu ka dhashtay. waa in dulmi oo dhan magaalada Makka laga zuuliyaa. waxaa shirkani sidoo kale loogaga hortagay qabyaalada carabta dhexdeedii caanka ka ahayd. heshiiska in magaalada ay noqoto mid aamin ah oo marnaba qof aanan lagu dulmin karin marka la isku wada raacay ninkii miskiinka ahaa. ninkii kale ee xoolaha ka dhacay si degdeg ah qabiilkii oo dhan iyaga oo iswada kaashanaya ayaa ninkii xoog ay uga qaadeen ujuuradii ninkii miskiinka uu ku lahaa. nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee marka uu weynaaday waxyigana uu ku soo degay waxa uu dhahay shirkii qabaa'ilada carabta ay ku kulmayeen ee gurigii Judcaan ka dhacay natiijadii ka soo baxday shirkaasi wax aan ka jeclahay oo aan ku bedelan kara ma jirto. shir noocaasi oo kale ah ee dulmiga oo dhan hal mowqif looga qaadanayo haddii maanta ay samayn lahaayeen iyaga oo muslimiina waan aqbali lahaa. nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee sida qof walba ee dhalinyaro ah nolosha uu ka gudbo ayuuna isagana ka gudbay. 15 sano marka uu gaaray waxa uu nebiga bilaabay in uu shaqaysto. qoysaska magaalada Makka degan inta uu la heshiiyey ayuu maalintii xoolaha ayga uu u raaci jiray. sidaasi ayna noloshiisii inta badan ku socotay. waxa uuna halkaa nebiga uu ka samayn jiray ayga inuu raaco lacaga badan. shaqadani ay raacista ahna waxa uu ku soo bartay yaraantiisii xilligii Xaliimatu Sacdiya. nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee mar uu ka sheekeynayay taariikh nololeedkiisii waxaa sugan inuu dhahay nebi kastoo Ilaahay uu soo diray waxa uu raaci jiray ari. shaqadani ay raacista ahna culimada qaarkood waxa ay dhahaan waa tababar iyo u diyaarinta nebinimada. sababtoo ah ariga waa xayawaan aanan isku xirnayn. marba mid ayaa dhinacaada qofkuna inuu ku weeraro ilaa jiha kastuu u cararo ayayna sabab u noqotaa. waana halka qofka uu ka baranayo bulshada sida la isugu keenay iyo sida ay u kala tagaan. tanina waxa ay leeyihiin waa u diyaargaroobidda nebinimada. xilligani nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuu dhalinyarada ahaa waxaa la soo wariyey in nebiga uu dhahay 2 mar un mooye inta dhalinyarada aan ahaa weligeygii wax xun kuma aanan fakerin. habeen aniga oo bannaanka magaalada Makka ari ku daajinayo ayaa wiil saaxiibkeygii ahaa oo aan isnaqaanay ayaan waxaan ku dhahay arigani adiga ma kuugu dhaafan karaa? waxaan doonayaa sida dhalinyarada oo kale in magaalada aan taga oo caawa halkaa aan ku soo cawaysto. wiilkii waa uu iga aqbalay in ariga uu la joogo. aniguna waan soo baxay aniga oo keliya waxaan soo galay magaalada Makka waxaana maqlay dhawaq sida durbaanka wax la garaacayo oo kale. dhankii dhawaqa ayaan imid waxaana weydiiyey waxa halkani ka socda. waxaana la igu dhahay waa arooska Heblaayi iyo Hebel. marka aan soo galayba waxba aniga oo aanan maqlin waxna aanan arkin waxaa iga tambadiyey hurdo halkaasi ayaan ku dhacay.
kacay. Habeenkii oo dhanna waxa socday wanba uma hayn ilaa subaxii halkaasi ayaan jiifay. Kuleelka qoraxda ayaa subaxii iyada oo halkaa laga kala tagay ayaan ku soo kacay. Si degdeg ah goobtii saaxiibkeyga ee ariga uu ku hay ayaan imaaday. Saaxiibkeygii ariga waxa uu igu dhahay waad soo daahday. Waxaan u sheegay in halkaas hurdo un mooye in wax kale aanan ka soo faa'iideen. Habeenkii xigayna sidoo kale si aan magaalada u soo aado saaxiibkeygii ayaan ariga ku dhaaftay. Sidii hore oo kale caawana hurdo ayaa igu dhacday sida in la isuuxiyo oo kale subaxii un ayaan soo toosaa. Wixii intaa ka dambeeyay xumaan ama sida dhalinyarnimada oo kale inaan u noolaado kuma aanan haminin. Sidanina waxaa ku soo arooray xadiiska nebiga. Da'da nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee marka ay kordhay shaqadani ay raacista ahna in badan uu ka shaqeey. Waxa uu la heshiiyey haweeney xilligaa taajirad ahayd oo ganacsi ilaa ay dhulka Shaam ku lahayd. Haweeneydani badeecada ay keento sida dhulka Shaam loogu qaado waxaa u shaqayn jiray niman aad u badan. Nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee raggani dhulka Shaam badeecada u qaada si uu uga mid noqdo haweeneydani ayuu la heshiiyey. Khadiija maadaama aqoon dheer ah aysan u lahayn nebiga, wiilkeedii Maysara loo yaqaana ayay ku dartay. Khadiija horaan waxa ay ka waraysay in Muxamed uu yahay sida ay maqashay qof amiina oo lagu kalsoonaan karo. Si ay u hubsato danteedii xog badan ay uga qaadato wiilkeedii Maysara ahaa ayay ku dartay. badeecada dhulka Shaam ayuu nebiga keenay, halkaasi ayuuna ku iibiyey. Isaga oo faa'iido badan ayuuna safarkii ka soo laabtay Khadiija ayuuna u imaaday. Marka ay aragtay Khadiijo dhammaan badeecadii nebiga ay u dhiibtay in la soo wada iibsaday, faa'iido badanna uu ka soo celiyey, aad ay ugu faraxday. Wiilkeedii Maysara ahaa ayaa waxa ay ku dhahday, qofkani dabeecadiisii iga sheekay. Waxa uuna isaga u sheegay hooyadiisii qof amiina oo dabeecad wanaagsan, dadkana si wanaagsan ula dhaqma in nebiga uu yahay. Khadiija in badan ayay fakartay, waxa ayna xal u aragtay in Muxamed qof laga tagi kara ama shaqaale laga dhigan kara inuusan ahayn, si uu ula shaqaysto inta noloshiisii ka dhiman. Waxa ay ku fakartay in nolosha ay la qaybsato. Khadiija xilligani da'deedu waxay ahayd qof 40 sano jir ah, halka nebiguna 25 sano oo keliya uu jiray. Khadiija way ku dhiiran weysay iyada oo weyn in nebiga kawaji ugu sheegtay in ay doonayso in ay guursato. Kadib ayaa gabar saaxiibadeedii ahayd oo la oran jiray Nafiis ayay arrintani Khadiija u soo bandhigtay. Waxa ayna ka codsatay saaxiibadeedii Nafiis in iyada Maxamed ay u tagto ayna u sheegto in Khadiija ay doonayso in ay guursato. Fariintani Khadiija marka ay Nafiis ay soo qaaday nebiga ayay u soo bandhigtay, nebiguna waa uu ka aqbalay. Kadibna waxa uu nebiga uu ku dhahay, Nafiis waxaan la soo hadlaya adeeradeeda. Nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee adeeradiisii ayuu u soo bandhigay in Khadiija ay doonayso in ay isguursadaan. Nebiga adeeradiisuna way ku farxayeen go'aanka nebigana waa ay soo dhaweeyeen. Kadibna nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee adeeradiisu waxa ay soo aadeen qoyska Khadiija. Ugu dambeynna waxaa la isku guuriyey nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee iyo Khadiijo. Nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee Khadiija marka uu guursanayay waxa uu meher ugaga dhigay 20 geel ah. Xilligani Khadiijo waxaa la sheegaa in rag badan horaan ay ugu soo bandhigteen inay guursadaan, balse waa ay ka diiday. Laakiin nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee iyada ayaa doontay, iyada ayaana fariin u soo fartay oo ah in ay doonayso. Kolka ay nebiga furfurnaan iyo kalsooni iyo ammaano ay ku aragtay 2 bil oo dhan ayay arrintani Khadiijo ka fakaraysay. Ugu dambeyn sida ay doonayso ee guurka ahna waa ay u dhaceen. Nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee aad ayuu u jeclaa Khadiijo, inta uu qabayna marnaba lama uusan guursan. Awlaadda nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee uu dhalay dhammaantoodii marka Ibraahim laga reebo, Khadiijo ayaa u wada dhashay. Culimadu waxa ay dhahaan Khadiija waa haweeneyda ugu fadliga badan dumarka caalamka. Waxa ayna Khadiija nebiga u dhashay 4 gabdhood iyo 2 wiil. Gabdhaha nebiga uu dhalay waxaa la kala oran jiray Zaynab, Ruqiya, Ummu Kaltuum iyo Faatima. 2 wiil ee Khadiija ay u dhashayna waxaa la kala oran jiray Qaasim iyo Cabdullaahi. 6 waa inta Khadiija ay u dhashay nebiga. Dhammaan carruurta nebigana intoodii badan iyaga oo yar ah ayay dhinteen ilaa Faadimo un mooye. Wiilasha Qaasim
iyo cabdullaahi iyaga oo yaryar ayay bilowgiiba dhinteen. gabdhuhuse ilaa islaamka way soo gaareen, xitaa ilaa hijrada nebiga waa ay noolaayeen kadib ayay gabdhuhu iyaguna dhinteen, ilaa faadimo un mooye. faadima nebiga nabadgelya naxariis korkiisa ahaatee marka uu dhintay 6 bil kadib ayay iyaduna dhimatay. nebiga nabadgelya naxariis korkiisa ahaatee canug uu dhalay ee nina ee ka farcamay ma jiro. xitaa gaalada carabta waxay oran jireen waxaa mahada in fikirkan islaamiga in maxamed uu ku kooban yahay. haddii uu dhinta maxamed, qof wadi doona ama canug uu dhalay ee sii noolayn doona ma uu jiro, iska daaya ilaa uu ka dhinto. in ciyaalka nebiga nabadgelya naxariis korkiisa ahaatee iyaga oo yaryar ah ay dhintaanna waxay ahayd waxyaabaha nebiga ay ku dhaleeceyn jireen carabtii mushrikiinta. carabta oo dhan waxa ay nebiga la coloobeen marka uu waxyiga uu bilowday inuu ku soo dego. waxay intaa ka horay nin amiina, maxamedul amiin ayay dhexdoodii u yaqaaneen. xitaa odayaashoodii ugu waaweynaa arrimahay isku khilaafaan sida dhacdayba nebiga ayaa u xarin jiray. waxaa la soo wariyaa xilli in dhismaha kacbada in aad uu u burburay, ilaa xilligii ismaaciil calayhi salaam derbiga kacbada cid dhistaa ama dayactirtaa ma aysan jirin. derbiga kacbaduna aad ayuu u gaabnaa, sidoo kalena kacbadu kor ayay ka furnayd. dhismaha kacbaduna sida roobku ugu da'ayay, daadka iyo biyaha ay u soo galayeen heer ay dumdumta ayay kacbada ku dhowaatay. waxaaba intaas sii dheeraa in kacbada qasnado dahaba oo lagu keedin jira oo carabta halkaa u yaalay in koox tuuga ah kacbada inta ay kor ka soo galeen ayay qasnadahaasi dahabka ay ka xadeen. kadibna qabiiladii carabta ugu waaweynaa hal meel inta ay wada imaadeen ayaa waxay ku heshiyeen in kacbada dayactir in lagu sameeyo. qodobyada dayactirka kacbada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in qabiil walba xoolaha dhismada uu u keenayo waa inay noqdaan xoolo xalaal ah, waa inaysan noqon xoolo la soo xaday ama qof la dulmiyey xoolo laga qaatay ama gabar sinaystay ama nin sinaystay lacagta uu qaatay ama lacagaha halkaa foolxumadaha laga helay. waa in dhismaha kacbada aanan lagu soo darin. dadka carabta si kastoo gaalay u ahaayeen weligoodii kacbada meel muqadas ah inay ahayd way isku waafaqsanaayeen. sidoo kalena runsheegidda iyo ballangudashaduna aad ay ugu wanaagsanaayeen. kacbaduna waa meel qof walba sharaf iyo cizi dhismaheedii uu ka raadinayo. si aanay qabiiladu dhismaha kacbada aysan ugu dagaalamin, qabiil walba waxaa la sii meel cayiman, halkani waa inuu dhisaa. injineer ruumi ah ayaana arrintani ka caawinayay. brobleemkii cabsida ugu weyneed ee xilligaa jirtayna waxay ahayd derbiga kacbada sida loo dumin lahaa. waayo qof kasta aad ayuu uga baqayay meel muqadas ah inuu burburin ku bilaabo. wixii horaan abraha ku dhacayna dadka oo dhan way wada xusuustaan. qof dhaqaaqa oo shaqada bilaaba carabta dhexdeedii waa laga waay, iyaga oo dhammaantoodii u soo diyaargaroobay in dayactir kacbada ay ku sameeyaan ayaa qof dhaqaaqa uu isku dayay in derbiga kacbada uu wax ku dhufto waa laga waaye. ugu dambayn nin loo yaqaanay umaya binu muqiira ayaa inta uu dhiiraday ayaa derbiga kacbada waxa uu bilaabay inuu dudumiyo. dadka oo dhan ninka ayay wada daawaneen haddii ay wax ku dhacayaan ama haddii kale. niyadoodii maadaama ay wanaagsaneed ninkaana ay arkeen inaysan waxba ku dhicin, dhammaantoodii shaqadani ayay u soo wada jeesteen. kacbada oo dhanna dhismaheedii qadiimiga ah waa ay dudumiyeen. qabiil walbana booskii loo iclaamiyey ayuu bilaabay inuu dhiso. markay in badan dhiseen waxaa ka dhammaatay lacagtii xalaasha ahayd ee kacbada ay ugu soo talagaleen. waayo dhismaha kacbada lacagta keliya ee loo ogol yahay ee ballantuna ahayd waa inay noqotaa mid xalaal ah. mar haddii lacagta ay ka dhammaatayna waxay ku qasbanaadeen halka dhismaha uu maray in halka ay ku joojiyaan. wayna ku joojiyeen halkaasina albaab laga soo galo oo weyn ayay u sameeyeen. intaa kadib marka ay soo gaareen halka dhagaxa xajarul aswadka uu yaalay waxaa soo kala dhex galay qabiilada khilaafaad weyn. qabiil walba waxa uu doonayay in isaga dhagaxa xajarul aswadka in booskiisii uu dhigo. waa dhagax aad u yar oo dhowr qabiil ay isku khilaafsan yihiin. maalmo dhowr ah ilaa habeeno ayayna dacwadani socotay. marka isfaham waaga uu ku dheeraaday heer ay gaareen qabiilada in dhagaxani dartiis ay ku dagaalamaan, qabiil walba waxa uu ka soo horjeeday in qabiilka kale beri uu ku faano in kacbada xajarul aswadka in booskiisii isaga uu dhigay. marka arrintu dagaal in ay ku dhowdahay ay arkeen ayna ku heshiin la'yihiin dhowr maalin kadib, nin iyaga ka mid ah ayaa waxa uu talaahaan uu u soo jeediyey fikrada sida hadda aad u wada dhan tihiin qofka ugu horay ee albaabkani ka soo gala ayaa dacwada loo bandhigi doonaa. wixii uu ina dhahaa qofkaasi waa inaan dhammaanteennii aan ku qanacnaa. qof walbana waan ogolaha ayuu dhahay.
qabiil walba marka uu sidaa dhahay xoogaha ayay sugeen, waxaaba albaabka ka soo galay ninkii ugu horay nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. xilliganina waxay ahayd inta nebiga waxyiga uusan ku soo degin ka hor. markay arkeen in Muxamed uu yahay qofka ugu horay albaabka ka soo gala, qabiil walba aad ayuu u farxay. cod dheer ayaa waxa uu ku dhahay, kani waa mid aamina, waa Muxamed, waana ku qanacsannahay wixii uu inagu xukumo. nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayay u soo bandhigeen wixii ay isku khilaafsanaayeen. marka uu dhegaystay nebiga si caqligala oo horaan qofna uusan ugu fekerin ay kuwiisana, ayuu nebiga brobleemkoodii uu ku xaliyey. waxa uuna dhahay, waxaad ii keentaan go' weyn oo afargeesa. go'aasi kadib qabiil walba qofka u sharaxan inta uu soo istaajiyey ayaa nebiga waxa uu ku dhahay, geeskaasi istaag, adiguna halkaasi go'a ka qabo. qof walba marka uu go'a qabtay, nebiga gacantiisii ayuu ku soo qaaday dhagaxa, kadibna go'ii ay wadahayeen qabiilada oo dhan ayuu dhexda ka saaray. qof walba marka uu gees uu ka qabtay go'ii ayaa waxa ay keeneen ilaa halka ugu dambaysa ee dhagaxa la dhigi lahaa. nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee marka ay halkaas soo istaageen, inta gacantiisii uu ku soo qaaday dhagaxa ayaa booskiisii uu dhigay. qof walbana si isku wada mid ah, maadaama dhagaxa uu u soo qaaday cadaaladani, aad ay ugu faraxsanaayeen. waxayna ka mid tahay dhacdadani waxyaabaha layaabka iyo caqliga cajiibka ah ee xilligani nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee dhallinyarada u ahaa brobleemka weynaa ee qabiilada deegaankaasi dega oo dhan ay xalin waayeen, sida fudud ee xalka ugu helay. waxaana dhinac cajiibka ah sida markaasi Muxamedul Amiin ay ugu yaqaaneen, marka uu waxyiga uu ku bilowday si degdega, qabiiladii oo dhan 360 digri ayay kala wareegsadeen. durba waa saaxir iyo kaahin ayay bilaabeen in suuqay u geliyaan. waa inoo marxaladda waxyiga iyo sida nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ugu bilowday.